kusoo dhawaada Lancome 252 channel. maanta waxaan doonayaa inaan idinla wadaago ama intuso sida lagu kaydsado data Google Drive-ka. marka Google Drive-ku wuxuu ku siinayaa storage badan oo aad xogtaada ku kaydsan kartid. marka insha Allah taala waxaan doonayaa inaan bal in yar idinka tuso. marka ugu horeysa waxaad geli kartaa laba sida halka intaad ku qortid Google Drive ku qortid هذا gashid waad samayn kartaa. laakiin waxa ka si fiican inaad xagga Gmail ka soo gashid aad tiraahdo Gmail aad ku dhufatid markuu Gmail ku soo kaco inaad ku dhufatid geeska halkaas oo kale aad ku dhufatid halka application-adu soo galaan software-daasi deetana aad Drive tiraahid markaad Drive tiraahid uu sidan kuu soo saaro halkan ku geeyo halkan markuu geeyo xaggan save barkan ay tagaysaa waxaad ku dhufanaysaa new markaad tiraahid haddana waxaad ku dhufanaysaa new folder maxaa folder baad ku dhufanaysaa xagan ku saaraya folderka magac ku bixiso ku leeyahay magac baad bixinaysaa magaca doontada bixin kartaa ana waxaan bixinayaa ana test1 oo kale ama test2 baan bixiyay deetana waxaan yiri create baan yiri folderkii wuu abuuraya hadda folderkii wuu sameeyay waa kan test2 ayuu igu bixiyay double click ayaan dhihi karaa markaan double click dhaho halkan ayaad xogta dhigan kartaa hadda folderka kun folder baad samaysan kartaa markaas hadhowtana xogta inta dhex gashay xogta ku shuban kartaa waa sida computerka oo kale folder samee hadhowtana dhexdiisa wax dhigo folderka hadda waan sameeyay waa inaan xogta dhigto bay harsan Soomaa waxaan tagayaa storage-kayga oo ku soo drag gareynaya drop and drag aad isticmaali kartaa file waad dhigan kartaa folder dhanna waad dhigan kartaa doonta folderada halkan yaalo oo dhan intaan wada highlight gareeyo waan wada dhigan karaa halkan laakiin hadda saan u tijaabino test ugu sameeyno maadaama wax laga yaabo wax badan folder badan qaadno xog badan la socoto inuu yara waqti badan qaato marka hadda hal folder baan ku tijaabinaynaa notepad-kan oo kale notepad-kan waa folder notepad maaha waa folder hoosta ku jiraan kanoo kala soo qaadaya folderkii test2 ku sii dhexdeynaya in yar buu ii wareejinayaa upload buu ku sameynayaa oo ka upload start wareega yarka markuu cagaar noqdo inta wareega yar markuu dhameeyo ayaan xaga ka eegnaa ka wareegaya xogaa yar iska suganaa ka dhacay tigta cagaaran saaray marka hadeerto waan geli karaa xaga markaan xagan aan ka soo eegno bal waxa ku jira folderka double click marone waxa ku jira notepad-yadaas ku jira C# websites ay ugu horeyso ayaan ugu dambaysa Words intan uun baan hadhowtan halkan ka helaya hadaan xaan ku dhufto folderka waa kan waa test folderka guud kale ku sii guda jiray aan soo import garay hadda aan ku soo upload gareyna waa what new ka san ku dhuftay intii bay dhex taala soo ma aragtaan word text oo wada notepad faylashay C# websites bay ugu horeeya waka Google Drive ku dhex jiraan soo ma aragtaan test folder kale kaga sii dhex jiraan test folderka kale sii dhex yaala folderka kale notepad-yadaas sii dhex yaala saas ayaad ku kaydsan kartaa folder kale waad samayn kartaa kun folder baad samaysan kartaa kana kale waxaad bixin kartaa wax la yiraahdo sawirro waad bixin kartaa sawirro create waad leedahay website-kii ku sameeyay wakaas ma aragtid laakiin waxaan ku dhex sameynaa halkan aan ku dhex sameynay aan ka baxo halkan aan tago my drive aan tago haddaad rabtid folder la siman inuu kuu sameeyo aan gudihiisa ku jirin my drive baad ku dhufanaysaa laakiin haddaad rabtid folderka inaad folder ku sii dhex samaysid click baad dhahaysaa new baad sii odhanaysaa hadda new dhaho folder buu halka igu sameynaya folderkan sameeyo halkaas ka what new gaas la sinmaya laakiin haddaan my drive ku dhufto oo aan hadda new folder iraahdo test2 gan la sameeyaa balayno aragno waxaan u bixiyo kale test3 baan niri create baan niri waka soo maartaan gudihiisa mid kale waan ku sii sameyn karaa click baa dhahaya hadda new baan dhahaya folder baan sii dhahaya waxaan sii dhihi karaa kale markana waxaan dhihi karaa files baan dhahaya create baan dhahaya soo maartaan isaan click sii dhahaya halkaas xogta dhigan karaa marka image folder busule marka ugu horeyso waxa weeye marka ugu horeyso waa test3 marka ku xigta waa files
marka waxa soo dhigan karaa file baan tagayaa waxaan tagayaa halkan waxaan tagayaa matalan ba meel faylaliya php gan oo kale tagayaa oo sorry kan waa halkeer kanoo kale tagayaa anigu network administration ka kana uu maran yahay mid semester 6 file kan oo kale kana hal file lecture 1 kaas soo qaadaya xagaan soo dhigaya wuu wareejinaya lecture 1 uu fududaa markii baynu dhacaya laga yaabaa may waa kan uu socda wali oka soo dhacay marka file-ki waka hal file weeye folder dhan ba soo dhigan kartaa hal file ba soo dhigan kartaa hal sawir ba soo dhigan kartaa already adigu waa sida storage kaaga oo kale computer-ka folder samayso xogta ku soo darab garay folder samayso xogta ku soo darab garay oo ku kaadii marka main folder hadda sameynaysid my drive tag dabeetana halka ku samee hadda rabtina sub folder samaysidna folder ka ku dhex sameynaysid click dheh dabeetana marka waxa tiraahdaa new d وكا انت سوي كل دوين سب فولدر يا مين فولدر انت سين ما تربينا يدي لو وداغو ادي اد باد ما تنتين هي لاوينا ان شير غريسان ولو وداغتان صحابتينا ان لايك صارتان كومنت كله سبسكرايب تنا كي لاوينا ادي اد باد ما تنتين السلام عليكم ورحمه الله